السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحدي عافيماد قبان دين رجينا يا إن تكسو ميسان بشا بركيسان رمضان نكني دين عشي ميلك أيو قراء كان نوغا صوت دراي وحاو عوان وغا صوت دراي قلبي غاي حنوني هبين كي كوان أنو حاس كايغا اسكو علوني أما أنو اسلقلوني أيا دباتاdan igu dhacday buu yiri bal qoraalka hadii aynu hoos ugu sii daadegno waxa uu leeyahay haweeney ayaan guursaday haweeneydaas markii aan doonayay inaan guursado ee aan wada sheekaysanaynay quruxdeeda waan ku qancay dabeecadeedana waan ku qancay diinteedana waan ku qancay dhaqanka iyo asluubta ay leedahayna waan ku qancay intaaba waan ku qancay buu yiri waliba waxa uu aad xooga u saarayaa oo laba meelood ku xusay inay tahay qof diin leh oo xagga diinteedu ay aad u fiicantay isla markaana wuxuu yiri intii aanu wada sheekaysanaynay qof aad u asturan oo aan jirkeeda meelnaba aan laga arki karin ayuu ahaa marka laga reebo wajiga oo markii ugu dambeysay aanu iskuursanaynay aanu markaas ay wajiga ay tustay markii meerkii noo dhacay ee aanu guri isla tagnay ayaa wuxuu yiri waxaan arkay kubabkeeda ama qaybta lugaheeda waa qaybta kubka aynu naqaano bulshadeenu oo saayid u dhuuban arintii waxay igu noqotay buu yiri irbad qalbigayga ku taagan waxaana igu abuurtay buu yiri qalbi xanuun niyad jab dawakhaad ayay ii geysatay buu yiri arintani waxay sababtay buu yiri gabadhii inaan u hamoon waayo iyo jacaylkayga inuu wiiqmay iyo inaan isciil kaambiyo arintaas ayaan wali la dhibanahay buu yiri ma aanan kala tagin oo waa isqabnaa laakiin tala ayaan u baahanahay buu leeyahay aad buu mahadsan yahay walaalkaasi marka koobaad waxaynu sheegaynaa xagga ragga ama raggeena ayaa lagu xaman jiray inay luga baasta yihiin ama raggeena ayaa dumarku markayna maagayaan ama markay meelaha inaga gacan tukaaleynayaan bay oran jireen waa luga mirq ama waa luga baastay haddii xakaas haweenkii ama dumarkii aad ka dareentayna wax dhibaato ma laha ee waa aynu isku qaadano haddii talada aynu daadegno markaynu ka nimaadno kaftanka aynu walaalka ku yara tuurnay arintani haweeneyda qaabka ilaahay jirkeeda u sameeyay laguma nici karo intii kale oo dhan mar haddaad ku qanacday waxaynu leenahay waxyaabahaas inaad moodsiiso ama inaad silowsiiso sidoo kale waxa muhiim ah meelaha haweeneydu ay u quruxda badan tahay ku mashquul ee marka hore baad ku jeclaatay jirkeeda kale indhaheeda wajigeeda qaababka kale ee ay leedahay jir ahaan ama xataa damac ahaan hadalkeeda meelaha kale ku mashquul ishaadu yay ku dhicin labada lugood dhexdooda intaas ayaynu talada walaalka ugu soo ururinaynaa in hawshaas uu ku qaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.